maya maxaad iga salaamay miyaad markaas bay salaam kula soo wada boobaya yaad ii taqaana anigu inaan rag iyo inaan Soomaaliyeed waan ay wariya salaamna ma rabo salaantiina ma doonayo nin Soomaaliyeed inaan salaamaaba mamnuuciga nin Soomaaliyeed ha سلام حياتي يا دي تقانا ما كان بيعرف كده كله سوق له وين كسرانك سلامتي ما تقانا محنو سلامتك ما يعني محيا بدي تقانا محبت دي سلامي ما يدي تقانا انيغا ما كان بيسلام كله سوق ودا بوبيان warbar ma ku sheega ordafka la ka qabsan ku magaalada wala bortis dajba marto salaanta khaldina ii sheeg maya maxaad iga salaamay miyaad markaas bay salaam kula soo wada boobayaan yaad ii taqaana anigu inaan rag iyo inaan Soomaaliyeed waan ay wariya salaamna ma rabo salaantiina ma doonayo nin Soomaaliyeed inaan salaamaaba mamnuuciga nin Soomaaliyeed ha yaad ii taqaana aniga ha waxa weeyaan arada ka muuqatiyo magaranaysa kuleelka ka muuqda waa kuleelkayga maxaa ka saaran kuleelkayga maxaa ka saaran dhibaato wiil Soomaaliyeed ku geystay umba horta ugu dhacaysaa leeyahay dhibaato ku geystay waad wada ogtiintii waad wada ogtiin inaan dumarka dhibaato aad u geysataan waad wada ogtiin sama waxaad ogaan lahayd aniga gabar Soomaaliyeed tii geystay ta ogaan lahayd qalbiga si fiican ugu ooyay ma argoosasha ma naga argoosanaysan gabar Soomaaliyeed war ma ku sheega isku waayama nihin walaal ma garatay ani adigu dhibku soo gaaray ka daran baa aniga soo gaaray oo ay ku geystay gabar Soomaaliyeed geystay gabdhihii Soomaaliyeed dhammaan si u dhanayaan anigu xanuun oo qabadee waa ko ma garatay adi laakiin kuwa maayo wax dhici jiray way wax ugu dhacay anna wax dhici jiray baa ugu dhacay laakiin waa si ka daran yahay ta ugu dhacday dad ogaan lahayd marka ujeedadaad maxay ahayd adiga halkan kuuguma sheekayn kara waxay soo maray halkan kuuguma dhameyn karay cala kulli xal waayo ujeedadaada baleesha maxay ahayd marka adigu maxaad rabtay maxaad iga doonaysay aniga ma adigana ku salaamo ku barto umba ciqabay bis oo walaalnimo walaalnimo waa sax ko dhibaatada adigu soo gaadhay waa in fardoonta la yaaba waa ruux anna ka daran baa soo gaadhay waa ruux dadku dhibaatada way wada gaadhay marka inaan la soo warrabo laakiin halka la soo warrabo rabbi maya waa ruux walaal heede adna dib baa ku soo gaadhay anna dib bay soo gaadhay nin Soomaaliyeed baa dib tay geystay anna gabar Soomaaliyeed baa dib ta ku geysatay kowde labadana wada banayna sama ya bal gurigayga xaqanayna mar istaag kuma warrami karna halkanayna mar bal gurigaas waxaan ku horta gurigaygu waa kan walaal sax maxay cabaysaa biyo maxaan ku keenay sharaab waxba afka ma saaray may walaal cab may waan qaadeen qayda ha ma garatay horta heede dhibaato inaan Soomaaliyeed ugu sameeyo ma wala dhacay sax ma garatay waan dareemay magaca wiilba inaan rageedba waan ka xanaaqaya waan gartay sababta aan ugu xanaaqayana waxa weeyaan dhib fara badan bii soo maray sax ma garatay waan gartay anoo yar bii guursaday waan gartay ma garat sax dadana markaan iskuusanay adigu ilmihii koobaad markaan dhalay ilmihii labaad ayuu ninka shaqo beelay waan gartay dabkaba waa shidan weyn sax dee labadiinu inaad guriga wada fadhidaan ma fiicna baan sidoo aayar baan kacayo waxaan idhi waryaa hee anigu waan shaqo tagaya sax dee mar adigu hataa shaqo weydi anigina inaan iska fadhiyo ma hee bal bariiska ilaahay waa intaas ii soo dhiibaayay iska joog baan idho suuqan shaqo tagay sax suuq markaan shaqo tagay xabuubley baan waa gartay xabuub baan soo iibiyay oo dhigdhigay taano sax goobaan u xidhay xabuub baradhada iyo basasha iyo xabuubta iyo intaba bakhaar baan ka soo amaahanay soo gartay ma waa gartay markaan bakhaarka ka soo amaahdeen dhigdhiga ilaahay ma garanaysay aw qarxiyo عدي أنت عدنا وعلينا يو أنت محاك ولا رايي إيه تصارنا وان كلا هري صح أنت هسنكو بيليني
هذا ما كده بهد بس كوير نبي واحد إلهي بعد أرساقة بحية صح أنتي مقرنا ساعة أنشاء ما هنا إن أنكو يبسدوا إلهي قصية هذا ما كده بقى إنك شقوا حلا صح ما كان شن الماض مري صح أن من أور لا أي شقة حلا شقة دي مركوي حلا يا أيام حنكو ده طاية أو يدي لعبتي أوروري هذا عيال كويس كواوينات صح لعبتي أورورنا guri yaro hadbad aan ka dhisay oo aan nabayo sawirkii oo kaliya taagan yahay ayaa waxaan walaal inoogu dhamaystirintan taas yidi lacagtaydu kuma ridin ururinaya maxaan guriga ugu dhamaystirayaa lacagta bankiga taala ku dhibaysa maxaan ku raahdaayay marka lacag la soo hadal qaadaa madaxu ku kaca lacag markaad aragtad yaad sandhadhaa waxaan buu akhriyay adu ninkii lacagtii ka soo furfuri kari waayay sax gurigiina uu dhamaystiri waayay maalintii dambe inankii yaraayay aan dhalay ee curadka yaga ahaa baa gabadh keenay oo soo guursaday sax gurigiiba noo yimid wuxuu nala tashaday hooyo aaboy wakaas gabadhaasaan guursaday buuri sax dee diiniyan markay noqotana ilmahaagu markuu qaan gaadho hadduu in loo guuriyo weeyaan tiina taasu iiga taagay war lacagtan bankiga kuugu jirta inanka ugu dhis ma lacaga wayla shaqaystayba ma lacaga wala maxayba baba waar anigu ma mid aad ila shaqaysatay baad cuntaan waxaan soo shaqeeyo soo maaha waxaan reerka ku biiriyaa haddaad biirisaa walbaad adaa hooyo aabba noo ahaa iminkana nabiilown lacagta halkaa taallaa miyay ku dhibaysaa aday kuu taalla adu inankiina uu ka dhaqaajiyey inankii odaygii gabadha dhalay ayaa waxaa la sheegaya maqalunba igu ahayd amaba aragtay waxaa la sheegayay inuu odaygii inanta dhalay au u dhisay uu guri u sharaxay uu hooyey uu si sharaf la ka yeelay weliba على كل حال وجهتي سراو يسوق قتي ها صح ايو يسوق قتي waxaasna waa odayga reerka ma garanay صح way ka soo wado maalintii dambe ayuu xili naahoy idagayso baahilay shaqo waxaan helay kale صح waaban ku farxayba shaqada kale aad heshay maxay ahayd waa shaqo laba habeenimo ah labada habeen baa la shaqeynayaa habeenka jimcaha iyo habeenka sabtida labada habeen markaan shaqeeyo todobada fiidnimo tagaya salaada subax ama todobada subax shaqooyinka waxa ayaan imaanaya jawaan iska aaminay ma garanay صح ya ilan qofkaas waxaan hayska miskiin tahay waan aaminay ka muuqdan waan aaminay wala waxa la yiraahdaa aaminaaduna waa shay qaali moogta aamin baan iska hama koraba صح waan aaminay ugu fuulo waxaan aan cuntada u kariyaan habeenimada istaadada ilan waa nin rago meelaha cuntana muuna baran meelaha oo ka cuno moogta jikadan galaayo marka shaqada ka yimaado cuntada u sameeyayo kulaylisan ugu xidhaayo waan u dhiibaa صح ilan show ninku naag buu guursaday فكرت naag ayuuba lacagta ku guursaday inaad armad gadaysa sheekada madaxaas ay marka aliya markaan xasuusto ayuu madaxaas ay cayaaba hadda hawshi ma jira sheekada igu wadaa wallahi xasuusta laftigeeda ee sunnay ka wahaa kama mayana xasuusta laftigeeda madaxay kicinaysa idagayso waa ka qaaday yiri labadii habeen ugu baxaa u soo dhaxaa ana kulaylisada cuntada ugu xidha ilaa in kulaylisadana iba naagtuba la soo cunaaba oo naagtan cunto ma karsa waa mid marjac oo meyd ah oo meesha u taala cuntadan anagu aan kariyin baa loo geeyaa صح soo xad gartay ma cunto ma lacag ma nin ba isku heshay markaasay saa u mudsatay صح anoo qabar maada aan waxba ba ogeynba ayaa maalintii dambe ugu soo tiro waa nafsiga anoo waxba ba ogeyn ayaa naagta telefoon soo dirtay ma ku dirtay aniga laftarkayga ما ياه سيدا صدري مركا halku ka soo diray ma macal isaga hilfaha u qaatay صح ما ياه war moogid haye ninkaagi ma ogtahay maya man maxaa ku dhacay ma dagaal buu galay dagaal aha ku taanu bay guursaday arinta horta arin jirta weeyaan aliya aragta sidaan baa markii gabadhu ku sheegay haye laakiin waxaan damcay inaan idin maro way kowle arinta arin jirta weeyaan naagtani naag jirta yahay laba habeen baa loo isqabnay toddobaadkii baad ugu laba habeen labada habeen yar nasashada ah
بارس لها كل ستي واي markii hore nin guur socdo maan lahayn واي aadna wad ogtahay waan u lixay jecel badna واي ina waxa weeyaan lacagta bangiga ka soo saaro hatta islaanta waan u diid واي laba qol guriga labada qol nool dayactir ba tiro labadii qol waan diid واي kii wiil ahaaba tiri wuu guursanayaa wiilkana uu guuriyo waan diid واي isaga waa bandayriyay si uu islaanta waa joogjoogin oo lacagta mar dambe la soo qaadin واي ma fahant واي goor casara balaaya kulaha aday baa heshay واي adoo suuqa iska maraya ها weliga jin yar oo qurux badan ma ku helay ما يدو كوجن waxaad qaaymaysi balaayo wad la kulmi hay yaa wax qaayimay ya adiga reerkaagi baad qaaymaysi maana reerkayga qaayimay yaanyada reerka ku soo korisay ciida fadhide yaanyada iyo maxaa baradhaha iyo wasaaga wad warka manaag wanaagsan ba xageeno wanaagsaneen aad ku soo korisay horta wax weeyaan أعوذ بالله من الشر شيطان كاين مسكن نار مسكن نار وين يا لا شدك وياي كوله oo wixii gabadhii ku hadashay waad ogtahay shantii boqolun baa laga sugayaa shantii boqolkeen reer baad noqon markaa balaaya ila tagtay waayay balaaya ila tagtay asal lacagta wad bas halkii wad bixiyay naagtu markii hore waxay igu tiri oo qiyaama ay ku dhacday qiyaama akbar qiyaamay ay ku dhacday waayay ما فهمت مية دي كانت هاسوق اللي يدكوا صودا رجع قبصني أنا لا تدخياني هذا حاسس وحاكويري بابوركو ركاب مديو هلا مثل سيدي بو فاروق قراعي يا وعي ترى أدوين هذا الركاب صار يسمويان سيدي بو فاروق قراعي يا بابوركو واي حبيبي يرتل العسيم وقتها واي ما كان سالي سيدي ترى الركاب ما وحش واي ركاب كان أوهي لجاري هاي صوت صار بيتري ودياري هاي ركاب كذا صار واد مهرس أنا جو شكانت هاي يوم بارك واي waxay tiri lacagta meherka labada wadaadun baa dhagaha ugu ridaynaa wadaadka iyo labada markhaati hadhow kaama rabo yaani hadhow kaama rabo waa kaa cafinaya bal lacag baan u baahanahay iyaga unbaa wadaadada unbaa leeyahay haddiiba lacag la ay ku sheekeeyaan ilaa boqolkun baa lagu meheriyey toddobaadkii ugu horreysayba waxay tiri aqalka dee waa kaas oo aqalka waxay sare aqalka inoo hagaaji واي oo fadhiga inaga bedel واي imsuu ku kacayaa baa ku idhi واي marka balaaya ay wadato xidigahaasaan marayaa hadday tiraahdo milyan qooq maxaya waa ka soco waa sida ciyaalka dayanaan wada hadli هيا صعو صعو كسر سو nin weyn oo reer lama yihi war haddee qooq hadduuna ku geyn maxaa ku geeyey soco